xamde cabdi axmed xamde kuweyn oo ka mid ahayd fanaaniintii lagu bilaabay kooxda xidigaha geeska ayaa hargeysa ka sheegtay inay guud ahaanba fankiisaga hadhay. xamdi waxa ay ku dhalatay magaalada hargeysa sanadkii 1993 bishiisii saddexaad. haddaba xamde oon kula kulmay gurigeeda hargeysa ayaan ka wareystay arrintani iyo heerka fanka soomaalida ee xilligani. maxaa kugu kalifay inaad fanka ka baxdo? aad baad mahadsantahay Sagalay. walaal horta caawa waxaan aynu isugu nimay halkan ama barnaamij faneed ma wadno. dhammaanba horta waxaan salaamayaa ummadda islaamka Soomaali maxamed meel kasta joogto ayaan salaamayaa. Sagalay imika intii sanadkii imikayna dhaafay 2017 iyo 18kii aynu ku jirno 17ka intiisii dambe ilaa 18 aynu ku jirno fankii shaashadii waan ka maqnaa layguma arag. waxay igu dambeysay 17kii sanadka habeenkii happy new year-ka hees aan barnaamijka kaga qayb galay sanadkan markaa walaalo aniga go'aansaday inaan fankii gabi ahaanba ka baxo. ana isu garan waayay markii horena cid igumay qasbin, imikana ana sidaa jeclaystay inaan ka baxo. dadku waxay isweydiinayaan xamde maxaa ku kalifay, ma kooxdii bay ka baxday oo waxay gelaysaa koox kale, mise guud ahaanba fankii wixii la odhan jiray oo dhan ay isaga baxday xamde? may walaalo kamaan bixin kooxdii oo keliya ama xidigaha geeska kooxdii aan ka midka ahaa ilaa maalintan fanka bilaabay ilaa waqti xaadirka aan iyaga ka mid ahaayoon ku jiray kamaan bixin. fanka gabi ahaantii baan ka baxay oon caawa halkan ka sheegayaa. Soomaali meel kastoo joogtaan u sheegaya marka fankii baan ka baxay walaalo. waa hagaag heerka fanka ee waqtigan xamdaay maxaad ku qiimeyn lahayd? wallahi Sagalay fanka heerkan maanta aan joogno ama fanaaniin ahaan la joogo haddaan qiimeeyo markaan fanka soo galayay iyo maanta markii aan gudagalay dhowrkaa saneen ku jiray horta different weeyaan weyno ballaaran. markaan soo galayay aad buu ila qurux badnaa, wax baan ku hamiyey, wax wanaagsan, laakiin sidii way aad magac baana fan Soomaali laga dhaxlaa oo maanta xamde kuweyn ilmaha yar labada jirkaaye ama yacni madaxa la kacay ayaa garanaya magac baan ka dhaxlay aan odhan karaa xamde kuweyn. marka walaalo waxaan ku qiyaasi lahaa wallaahi dad badan oo waxa jira aniga sideedoo kala caawa aan ama niyada ku haya qofba marun buu jeclaada ama fanka gala ilaahay soo hadeeya. waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo dhalinyara miirkayga qaba inaan caawa ilaahay gu guuleeyay inaan ka toobad keeno ama ku dhawaaqo ama social media ka sheego inaan ka baxay. aad baan ugu faraxsanahay, ilaahayna waan ugu mahadinaya. waa hagaag xamda fanka sidiisaba maxaa laga dhaxlaa, ma laga taajiraa horta fanka gabigiisa? Sagalay waad mahadsantahay walaalo. kolley qofku fanaan hadduu yahay ma fanka Soomaalida mise dadka caalamka aynaan dee hiigsan karin. fanka Soomaalida magaca ayaa laga dhaxlaa laakiin maal lagama dhaxlo. waxaan tiyo oo laga samaystaana ma jirto laakiin magac baa laga dhaxlaa. hadday noqoto fanaaniintii naga horreeyay waa beri, hadday noqoto qaar ka sii horreeyay dee magac ay ka dhaxleen. laakiin maanta meel kastoo joogaan waa la ogyahay, mid kastoo xanuusta, mid kastoo wax ku dhacaan dee fanaaniinteenii fankii Soomaalidaba iska noocaasa oo adigoo magac lahaa oo intaad dhalinyarada ahayd